salaanka bacdi geelan waxaan ka keenay degmada Gurceel cayr baa keenay waxaan ka keenay degmada Gurceel waxaan u wadnay shirka caasimadda lagu qabtay ayaan waxaan ugu keenay martiqaad waxaan ku wareejinaynaa gudoomiyaha degmada iyo duqa magaalada ee gobolka ayaan ku wareejinaynaa iyaguna waxay ku wareejin doonaan sanatarka iyo wasiirada iyo xildhibaanada soo dhawaada intaasaan leeyahay waxaan halkan waa dhuusamareeb duleedkeeda waxaan hadda u taagannahay geelaan aad arkaysaan hadda muuqaalkiisa waxaa laga keenay degmada Gurceel ayaannu ka keennay waxaan u keennay waxa weeye ilaahay idankiis martiqaadka shirka maamul goboleedyada iskugu yimaadeen ayaan rabnaa inaan ku casuumno ilaahay idankiis saasaa loo keenay waxaannu ku wareeji doonnaa gudoomiyaha degmada Gurceel asaguna wuxuu ku sii wareejin doonaa ilaahay idankiis degmada gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb oo ah maaragtay ninka hadda gobolka mas'uulka ka ah ilaahay idankiis marka madaxweynaha laga yimaado kadibna waxay ku sii wareejin doonaan wasiirada iyo senatarada iyo xildhibaanada ku sii wareejin doonaan ayaguna sidaas weeye hadda maqsuudka aan meesha u joognaa geela halkan dushannada dhooban beesha cayra waxay u keentay shirweynaha ka socda caasimadda inay ku martiqaado waxna waa dhiman yihiin waxna waa hordhaca waa la keenay waxaan rabaa warka inaan ku wareejiyo odayaashii deegaanka furidiisa laysiiyey ku soo dhowaada waxaan sheegaynaa geelaas waa martiqaad loogu talagalay inaan martiqaadku naga xumaan lagu sharfaa masiirka ummadda waddankan joogta dibadeedna waa 20 geelaan laga keena Gurceel hadduu yaraado leesyiraa ama yacni martiqaadku uu naga daba dheeraadaa waana la ku soo celinaa xaggaba aan ku soo qalnoon baabuur hilibkiisa ku keenin haddaan socod ku keeni weyne ha cabsanina dadaala xoola waa lahaayaa ilaahana siiyey waana bixin karnaa wasalaamu calaykum ujeeddadu waxay tahay waa mid odayaashu ay ka dhawaajiyeen geelaan aad arkaysaan tiradiisu waa 20 geel ah wuxuu qayb ka yahay ballanqaadkii ay reer Gurceel ay u sameeyeen wafdigii madaxweynuhu markii uu gogasha dhigay Dhuusamareeb oo ahay inay ka qayb qaadan doonaan martiqaadka madaxda iyo wafuudda imaanaysa Dhuusamareeb geelan 20 ay wuxuu hordhac u yahay inay uga qayb qaataan reer Gurceel dhaqankoodii oo runtii ayagu lafdhabar u ahay geelan guryahoodiina ka keenay inay uga qayb qaataan martiqaadkaas intaan kaliya ma ahan waa rajaynaynaa inuu isa soo dabahayo geel keliyana aan lagu simanay waxyaabo kaleeto oo muxuu ahaay ku socda martiqaadkan ay keeni doonaan reer Gurceel runtii farxaday noo tahay maanta inaan odayaashii dhaqanka iyo dhammaan bahdii reer Gurceelba ay halkan ku wareejinayaan ayagoo ka qayb qaadanaya muxuu ahaay martiqaadka iyo soo dhaweynta madaxda isugu imaanaysa caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb waxaan rabnaa marka geelaas inaan ku wareejino duqa caasimadda waxaa sidoo kale jooga wasiirka waxbarashada oo wakiil ka ah xafiiska madaxweynaha sidoo kale waxaa nala jooga sanataradii deegaanka muxuu ahay sanatarkii matalaya ah dhammaantiin waxaan rabnaa inaan inku soo dhaweyno inaad nagala wareegtaan xoolahan aad arkaysaan intaan kaliya kuma ekaysan doonno reer Gurceel haddaan nahay waxaan soo wadnaa oo noo soo saaran baabuurta arigii waa noo soo raran yahay waxaa noo soo raran oo kaleeto doora waa noo soo raran tahay lo' waa noo soo raran tahay caanihii baabuurtiisi dee waa soo socotaa waa soo daba haysanaa ma ahan inaan keliya inta geelkeenno aan leenahay martiqaadka waa ka qayb qaadanay waxaan rabnaa inaan madaxdeenna garab istaagno waxaan rabnaa inaan uga qayb qaadanno wax walba oo deegaankan martida imaanaysa aan quruxdeeda islaana waa lagu qurxin karaa wax walba waxaan rabnaa inaan keenno deeqdan mugga weyn oo beesha cayr ay bixisay oo gaar ahaan laga keenay degmada Gurceel oo odayaashii dhaqanka oo beesha cayr maanta halkaan ugu wareejinayaan horta marka hore waa ka mahad celinaa waa ka ducaynaa ilaahay waxaan ka baryaa meeshii laga soo bixiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu wax ka khayr badan uu ku bedelo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ma naqasa sadaqatun min maal sadaqadu ma nusqaamido maalka waa kordhisaa
ilaahayna qofka cafwi uuma kordhiyo ilaa cisi iyo sharaf maahane qofkii wax iska cafiyeen ilaahay cisi iyo sharaf uu kordhiyaa taas marka waxa weeye odayaasha waa u mahad celinaynaa mar labaad iyo beesha cayr oo halkaan joogta iyo reer Gurceel waxaan kaloo sugaynaa waxa gudoomiyuhu ballan qaaday oo maaragtay runtii maanta aan aad iyo aad ugu baahannahay oo hadee maanta aan la lahayn dhuusmareeb martida joogtahay maxay la eg tahay gurmadkaas kaad soo bilowdeen maahane kan kalena waa sugaynaa waxaan kaloo rabaa inaan halkaan ka soo jeediyo marka ay leeyihiin reer Gurceel nahay geelaan Gurceel laga keenay odayaasha dhaqanka halkaan jooga iyo gudoomiyuhu waxay u baaqayaan dadka cayr oo kale oo caasimada jooga halkaan jooga waxa la libaaxyadu markay dirirayaan inta iska hor yimaadaan ma lagdamaana waa isu ood jiidaan mid ood soo jiidaaya meel jida uu dhiga waxa uu leeyahay ka qaad dadka qaadi karto haduu qaado waxa weeye mid kale la raadina haduu qaadi waayana ninkii maaragtay oo meesha soo dhigaya carrada madax ka waxaan rabaa inaan u baaqo waa ogahay inaad geeli soo wadaan daatihiin cayrka magaalada jooga laakiin waa la idin kala soo hormaray inaan inta maalin ka dhiman ama berri wixii aanan helin waa waxaan sugayn marka hadii ilaahay yiraahdo adinkana intaas idin ma dhaafaayo mar labaad beelweynta meeshaan joogtana waa u mahad celinaa deeqdaanna waa gudoonay annagoo ka wakiil ah madaxtooyada iyo martida halkaan joogta dadkii wax u qabanayay intaba aad iyo aad u mahadsantihiin aad ugu faraxsanahay inaan maanta dadka deegaankan ee halkaan degan ay ka qayb qaataan martiqaadkii awoodda lahay runtii la aaminsan yahay inuu ahay mid aad u ballaaran inay ka qayb qaataan sidii dadka loo soo dhoweyn lahay sidii loo muujin lahay karam iyo sharaf dadka deegaankan degan ayay muujinaysaa nuuca dadka ay yihiin waan ku faraxsannahay waana aan gudoonnay runtiina waxaan aaminsanahay in ay tahay arrin taariikhi ah oo ay caddahay dadkaanu inay yihiin dad dowladnimada jecel dad diyaar u ah inay qarashkooda iyo xoolahooda inay ku bixiyaan sidii dowladnimada iyo istaageeriddu ay xoog u yeelan lahayd waan idinkaga mahad celinaynaa aniga shakhsiyan sababta la iigu soo xil saaray inaan gudoomo waxay tahay ama madaxtooyadu iigu xil saaratay waxaan ka mid ahaa guddiga qabanqaabada soo dhoweynta balwafdigan afarta maamul goboleed ah run ahaantiina waan idinkaga mahad celinayaa inaad isku xilqaantaan oo arrintan aad kaalin mugle aad ka qaadataan dadka deegaankan degan waxaa la aaminsan yahay inay geela saayid u jeceliin haddana waxa aad keenteenu waa geelii ugu qurxoonay runtii waan idinkaga mahad celinaynaa arrintaas waana aad balki mudan tihiin in aad garab istaagtaan balki dowladnimada runtii waxaa farxad weyn noo ah bahdan aan ka soo jeedno meesha aan ku joogno magacooda ku matalayna maanta meel kasta ay joogtaba in ay u taagan yihiin soo dhoweynta iyo garabsiinta maamulka curdanka ah iyo madaxweynahooda curdanka ah maxaa la yidhaahdaa inay martidaas maanta timid deegaanka ay muxuu ahaa bahdaanu garab weyn iyo muxuu ahaa u noqoto maxaa la yidhaahdaa inay garab istaagto xoolahan hadda ay wareejinayaan odayaasha dhaqanka iyo gudoomiyaha degmada Gurceel waxaa naloo sheegay inaan suuq laga soo gadin ee nin walba uu xiradiisa ka soo bixiyo asagu neefkii uu soo xulay uu isla martida ku soo ri kara naftaada u cuni kara ama martida xil kala had u qali karta nin walba uu soo qabtay uu ka soo bixiyay xiradiisa naloo sheegay xiradii laga soo bixiyay waxaan leenahay wax ka badan oo qayr Allah geliyo martida loo qalahayo oo lagu soo raayana ilaahay muxuu ahaa caafimaad ha ku siiyo inta isxilqaantay ee ka wada qayb qaadata hawshan runtii waxaan leenahay iyakana aad iyo aad baa u mahadsantihiin haddii annaga aan gooni isku fiirino waxaan nahay saldhigii baan nahay degaankii martidu joogtay xil iyo waajib bay nagu tahay inta gudoomiye Faarax tirinaya iyo in ka badanba inaan qof walba gurigiisa inta loogu tago maxaa ka maqan maxaa muxuu ahaa ku dhiman in la yiraahdo intaas iyo in ka badanna aan bixino aan ku taageerno waa wax muxuu waxaan mar kale muxuu ahaa uga mahad celinaynaa gudoomiyaha degmada iyo odayaasha deegaanka Gurceel martiqaadkan xoog leh ay qiimaha leh keeneen waxaan sidoo kale baaq u direynaa bahdan qaybaheeda kala duwan muxuu ahaa dhuusamareeb haday tahay haday gadoon tahay deexana buurata haday tahay mareer gur ya dadka degan
in ayagana qaybtooda soo qaataan ay keenaan geela guryaha xeryaha kala soo bixiyaan mid suuqa laga gado ma aha sida midkan xerada in laga soo bixiyaa la rabaa waxaan runtii halkan ammaan uga soo jeedinayaa geel kaliya maahan martidu waxay ahayd marti u timid magaalo aan muxuu ahaa dhisnayn magaalo maxay ahayd ay ku cusub tahay dawladda galmudug inay soo muxuu ahaa caasimadeeda ay ka shaqeyso ay ku cusub tahay guryihii iyo meelihii la dejin lahaa wufuudda dhalinyaradii iyo maxaa la yiraahdaa maamulkii degmada Dhuusamareeb oo ayakana sida aad iyo aadka iskaga xil saaray maanta muxuu ahaa aysan jirin qof martiya oo meel maaragtay meesha uu jiifo ama maxay ahayd soo dhaweynta aan ku qanacsanayn aysan jirin dadkaas goonida isku xilqaamana waxaan rabnaa ayagana inaan mahad u soo jeedinayo ammaan markaan intaas ka baxo waxaan ku soo gabagabeynaa Ceyrow wali hawshu waa taagantaa ma dhamaanin aad iyo aad baa u mahadsantii